السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لها يوم ميلا جوكتان بوايدين سلامي وحان ربا إنان لو ذاقو نصائح أما تلوين كسابسان بلشدين وحي سمين لهايين حلقان أن جوغنو عذر كان كورونا فايروس يدباتوين كيسا بدن marka waxaan rabaa talooyinkan inaan ka faa'iideysano marka koobaad waxa la wixii tala ah oo ka yimaada qaybaha caafimaadka wasaaradaha caafimaadka iyo dadka caafimaadka ku shaqo leh oo ay kamid tahay midna in la yiraahdo yaan la isu dhawaanin yaan la istaabanin yaan hawlaha nadaafada hala badiyo siday tahay aanu qaadano waa marka labaad waxa la wixii iyagana xukuumaadka iyo dawladaha iyo gobolada la joogo dadka mas'uuliyiinta ka ay keenaan oo awaamir iyagana hala qaato oo yaan mukhalafo iyo dabamar lagu sameeynin waxba ka dhalan kara maxaa jira hadii la yiraahdo guryaha jooga hala joogo maxaa jira cudurkan wuxuu ku faafaa dadka isu yimaada inta ugu badan qayb kamid ah way arinta saddexaad waxa la wixii la awoodi karo oo cuntooyinka iyo daawooyinka ooli kara waqti dheer ooli kara iyagana aan dhacaynin hala gato insha Allah ta'ala guryaha waxa la wixii la awoodi karo halaga buuxsado oo hala dhigto lama garan karo xilli uu qaadan karo cudurkan waxa suuragal bilo iyo waqti dheer inuu sii jiro arinta afraad waxa la sheegayaa inay jiraan dad albaabaha guryaha soo garaacaya oo caafimaad iska dhigi neers kuwa iska dhigi kuwa boolis iska dhigi kuwa iska dhigaya inay dadka wax talooyin u sheegaan oo ku taabanaya arimahaasi run iyo beenba waa suuragal inay noqon karaan laakiin anagu waa inaynu u qaadano inay run tahay oo xadarkeena aan qabno oo dadaalkeena aan qabno oo albaabada qof aadan garanaynin aan laga furin waxa kale oo jiri kara ziyaaraadka iyo booqashooyinka gaar ahaan dadka waaweyn la booqanayo guryaha la isugu soconayo oo loo tagayo hawsha iyadana hala yareeyo oo dadka hala isticmaalo media maanta ilaahay wuxuu na siiyay bedel media inaan isticmaali karno hadaa rabtana qof aragto FaceTime-ka iyo meelaha la iska arki kara kala hadal laakiin ziyaarada socodka ruuxa loo tagayo hala yareeyo dadkana waa laga booqan karaa in taleefanada la isu diro media la iska salaamo insha Allah ta'ala culimada waxaan iyo dadka caafimaadka iyo iskaashaday waxaan ku dhiirigelin lahaa magaalo walba iyo gobol walba in haday timaado la qadar Allah dad inay u dhintaan wayna u dhimanayaan haddana durba wayba u dhinteen gobol walba iyo magaalo walba iyo wadan walba inta badan dadkaas sidii loo dhaqi lahaa ama loo aasi lahaa ama loogu dhawaan lahaa waa ina dad loo tababaro marka dhinacyada caafimaadka hawshan ku shaqale waa inay arintaasna xil iska saaro alxamdulillah anagu already hawsha waan isku daynay waana wadnaa wayna noo socotaa inaynu qofkii ilaa qadar Allah inagu yimaado oo dhinta dadkii dhaqi lahaa in lala kaashado isbitaalada iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya oo dad u tababaraan oo dharkii isaga ha la siiyo marka taasna insha Allah gobol walba iyo wadan walba dadka joogay hawsha ha qaataan oo ha ku tala galaan ilaa maxaa jira haday timaado waa laga maarmaan inaad wax ka sameeyno hadii ay dhacdo la qadar Allah qof inaga mid ah inuu cudurkani ku dhaco ha sabab ha ugu noqonin qof kale inuu cudurka aad gaarsiiso ha ugu noqonin sabab gurigaaga joog meel kale aad hatta reerkaaga iyo carruurtaada ha u bixin qolkaaga ku jir oo isku karantiil adigu isbitaal aad aaday waxba ka qaban maayo daawada kuma hayaan marka waxa la rabaa ruux walba inuu san sabab ugu noqonin inaad gudbiso haduu qof ku tala galo inaad cudurka ku haya aad dadka kale u geyso sida hadda ka media laga arka ama laga sheegayo inay dad qaybinaya jiraan oo dadkii iyagu u geynayo oo raba inay haday jiraan ruux noocaas oo ku tala gala wuxuu noqonayaa qaatil qof qaatil ah oo dadka kale isagu dilaya ayuu noqonayaa marka arintaasna ha laga digtoonaado insha Allah dardaaran gaar runtii waxaan u jeelnaa dadka tagaasida iyo uberka iyo wada dadkaas iyagoo dad badan oo ina garaneen soo raacaya ha ka digtoonaadaan dadka noocaas yaani wax alla wixii digtoonidaada adigu qab dadaalkaagii qaado wax alla wixii aad isticmaal haday dhar noqon lahayd hadii wax lagu nadiifin lahaa hadaa qofku markuu ku yimaado iska buufin lahayd hawsha talagalkeeda waa in la qabo insha Allah ta'ala waxa kale oo laga maarmaan ah inaan duceysano oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo dhawaado
oo bishan weliba bilatay oo hadda aan ku jirno shacbaan weeye waa bisha rasuulku yidhi sala allahu calay wasalam bisha shacbaan waa shahrun oo dadku ay halmaansan yihiin waa bisha acmaasha rabbi loo kor qaado waa biluu rasuulku aad u soomi jiray soonkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dee ducada lagu aqbalo mustajaabo ay ka noqoto dadka muslimiintii bishan oo maanta laba ah insha allahu tacaala oon idinla hadlayo waa maalin khamiisa oo bishu ay tahay 25 baan filayaa bishan saddexaad maaj marka ha laysku dayo bishan islaamkuna waa laba maanta insha allahu tacaala oo shacbaan marka bishan inaan soonka aan badino soonkaasna markaas la ducaysto ducaduna mustajaabay noqono waa la aqbalaa insha allahu tacaala iyadana aan ka faa'iidaysano waxaan idin rajaynayaa meel kasta oo joogtaan guul waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ummadda oo dhan ka badbaadiyo cudurkan socda uusan ilaahay subxana wa taala qofna nagu keenin intii qabtana ilaahay uu caafimaad u ka siiyo wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu